الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحابي ملك استوى جوكتان قردويد أيان كصوب بحي مقالة جورج كونفور أفريقيا وقول كوسترن كيب أما دينا قلبيتك وكيب تاوندو وعنا سوق على هذا جوهانسبرغ هذا أيان إيربورك مردو كسو دقي dhacdo xanuun badan baa ka dhacday Soomaalida ama bulshada maanta shalay magaalada Johannesburg agagaarkeeda Pretoria magaalada caasimadda ah weeye Pretoria iyo Johannesburg way isu dhow yihiin nin dhalinyaro ah oo Soomaaliya ayaa wuxuu dilay gabar Soomaaliya markuu dilayna isagina waa isdilay waa dhacdo xanuun badan subxaanallah waayadan dambena sanadahan dambe Soomaalida way badanaysay isdilkooda South Africa iyada oo yani ay ku badan tahay dilku sidiisaba haddana waxyaalaha ku cusub wadanka oo dhibka badan waxa in Soomaalidu iyagu ama ay isdisho ama ay isdhacdo oo dhac Soomaalida dhexdeeda uu ka dhaco dad Soomaaliya ay dukaamo Soomaaliya dhacaan ama jabsadaan ama ay dilaan dad Soomaaliyeed oo ay ugu dhacaan hantidooda ama ay la shaqeystaan dadka iyagu wax dilay oo kale dhacdadan hadda xanuunka badan wiilku gabadha uu qabi jiray sida loo sheegay gabar bay u dhashay nin dhalinyaro ah buu ahaa oo sodobiyada meelahaas baan filayaa ama waqtigaas gaaray gabadha way kala tageen family ahaan xataa way isxigeen ka gabadha way isxigeen wiilka wayna kala tageen gabar bay u dhashay dhibaatooyin baa dhexmara sida la ii sheegay ama dad familka ah ay ii sheegeen xataa arrimahooda asbuucyo ka hor waa loo fariistay oo waa la dhexgalay oo dhexdhexaadiyay oo waxbaa jiray gabadhiisa uu imaan jiray uu arki jiray uu la kulmi jiray laakiin wuxuunbaa shaydaanku ku qaaday oo ah gabadha inuu lahadiyo oo uu yiraahdo dhowr jeer handado sida loo sheegay waa ku dilayaa wayna ka baqaysay qadartii Ilaahay subhanahu wa ta'ala shalay bay dhacday oo guriga ugu yimi gurigana dad kale taga dhiganaya gabdho kale sida loo sheegay kadibna iridaba wuxuu yiri gabadhan soo booqanaya gabadhii bay u diyaarisay yarayd inuu arko iridda markay ka furtay sida loo sheegay ayuu 5 xabadood ku dhiftay meeshii bay ku dhacday marka naftuna kaga baxay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naxariisto kadibna dadkii baa qayliyay gabadha meesha la deganaa gabadha iyo dadkii kale oo soo baxay guriga banaanka u baxay hadana ku soo noqday xabadii buu xabado kale ku gurtay sida sheegaysa gabadha la deganayd oo ka carartay kadibna booliis iyo waxa yimid waxaan filayaa inuu ka baqay minda in la qabto kadibna isagina xabad buu isku dhiftay waana isdilay naftina meesha ugu baxay waa dhacdo xanuun badan qofka yani dambiga dilkuna waa dambi weyn dambiga qofku naftiisa dilana waa dambi weyn shaydaankuna ibn aadamka aadiya aad buu uga shaqeynaya inuu khasaariyo adduunyo aakhiraba sidoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraan kariimka noogu sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala shaydaanka markii laga ceyriyay oo raxmadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga ceyriyay wuxuu ku qaartay فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين بل ويلكي إني آدم أيوكو حنباري ولا الكيس إنه جلوه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين يوروبتا inay ka dhacdo waan arki jirnay nin xaaskiisa dila ama gabadhii iyadoo uur leh ama iyadoo oo caadi ahon uur lahaynba dhacdooyinkaas way ka dhaceen Norway way ka dhaceen Finland way ka dhacday Mareykanka way ka dhacday oo dadkan xanuunada iyo jirrooyinka iyo waxaan Soomaalidu u taqaano buufiska laakiin asal ahaan shaydaanku inuu meesha ku jiro waxa way waxyaalaha sabab u noqonaya qofka inuu ku kalifo ka fogaanshaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo dhikrigiisa
iyo ku xirnaantiisa iyo alla ka cabsiga waxay keenaysaa inay qofka ku bixiso dembiyo waaweyn oo xanuun badan oo dhib badan naftiisa iyo dadka kaleba dib u keeni kara waa in had iyo jeer dadku muslimiinta ay ku dadaalaan inay ilaahay subxaana wa tacaala isku xiraan laguna waana qaato ilaahay subxaana wa tacaala wax walba qur'aanka kariimka uu noogu sheegay dil hadday xataa soo gaarto in adiga qofkan uu doonayo inuu ku dilo ama kugu tago النبي عليه السلام يكون عبد الله المقتول ولا تكون مقاتل النقن كي أدو وحدي له بس دفاعي كان قف يعني هدي نفتي سلوقي ما لكن وحوي مرة إن وحلا دلو لو قصده دم بآدي آدون ويودولك ولا جريرو إلهي سبحانه وتعالى كان صوم على ذا لباتويك كدر القاضو إلهي سبحانه وتعالى توبة هي خيرك هوا فتشيو الله سبحانه وتعالى adduunka naguma fidnayo fitna weyn baa adduunka ka socota imtixaan weyn baa socda naftu way go'aysaa laakiin qofku waa inuu ogyahay waxa naftiisu ay ku go'ayso hadda qaraxyo ayaa maanta mise shalay laga sheegayaa dalkii oo wararka ugu soo gaarayeen safar dacwo ku jirnay oo warar badan ma maqalno laakiin muqdisho qaraxyo ka dhacay dad badan ay saas ku nafwaayaan oo ku tegayaan qof baa ku dhiiranaya ama jannaba ku raadinaya dad inuu laayo muslima fitna weyn baa dadka muslimiinta ku socota حيوغتنا إلهي سبحانه وتعالى أنها هي شرطة فتنتا إلهي سبحانه وتعالى توبة نور فجي خاتمه ونأتسنى الله نور خاتمه إلهي سبحانه وتعالى أنها هي وحي شرع ياليه النبي عليه الصلاة والسلام عيسى الجريم هو كمذا اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضي يعني نلول ونأكسن إلهي سبحانه وتعالى خصيتاسنا هو ذكر إلهي بكجرته يكون حرنانته إلهي نوشه ونأكسن معاني تاسو وميتة سوية غيري ونأكسن غيري ووضع محدين بضنتها لكن ويكل حنون بضنتها ويكل ونأكسنتها وصبب هذا كل الدول إنان غيري حن ونحدين له وأنفي حنين وخاصة كسو أرورا ما كسو دكتي آيضا أحاديث كل مادين إنان قفك كسبب صد إيوه إلهي مركي الله نقضنا إلهي سبحانه وتعالى إنه فضيحين وإلهي سبحانه وتعالى أنه كارهين مد نقشدي أي نقطة نقشحون أي نقطة نقشة ونكسب كلك إلهي سبحانه وتعالى ونقض مد إلهي سبحانه وتعالى هو مارك تجند سكوجي وجود بدافع إلهي سبحانه وتعالى نور ونكسب النصي غيري ونكسبنا إلهي سبحانه وتعالى أنه ختمه إلهي سبحانه وتعالى قيامنا فضيحة iyo cadaabkiisa iyo hooga iyo qoomada Allah naga hayo meel kasto ay joogtaan asxaabi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh